laakiin meesha kaliya oo aanan daarood weligeed uga adkaanin oo mar waliba meydka aan soo jiidanayn oo Batuulakay u fiirsada Batuulakay la jiidayo oo laba daarood ay saa u jiidanayaan ba ka soo horbaxayo adoo qoslin oo labin sheegar oo dhahay waa guuleysan waxaan u mahadcelinayaa jamaahirta dhamaantood waxaan u mahadcelinayaa garaadkayga oo halkaan hadda aan ugu dambayn gurigiisa aan ku suganahay halka igu soo dhaweeyay oo kaligii ama shalayna ana ka joojiyay maanta aan ku fasaxay adoo akhlaaq iyo edeb iyo asluub aan cidna aflagaadeynayn fadral aflagaadeynayn wixii garow ka dhacayna assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh baydi salaamaya akhyaarta qaaliga soo dhawaada soo fadhiista muuqaalka inoo like gareeya meel dheerna inoo gaarsiiya barta waxaan igula wadaagi doonaa muuqaalo kala duwan muuqaalada kala duwan barta igula wadaagi doonaa waxaan jeclaysanayaa inaad sii fogeysaan meel dheer aad gaarsiisaan maxaa sababay ninka la leeyahay Idris Bebe inuu siika ku sheego jileec maalin walba daarood dilaan ama eriyadaan ama caayaan ama ka adkaadeen waa maxay sababta uu halka u gaarsiiyay sidoo kale maxaa keenay Idris Bebe inuu liido oo uu ku sheego waslad xun ama waslad magaranaysa boog ah oo ku taala hawiyay maxaa sababay inuu sidaas sameeyo Idris Bebe baadaba si kasta taba fikraaga artada oo nala wadaagi doonta hadaladiisa qaar kamid ahna weyn yara dul istaagi doonaa ila daawada siyaasadda Ameerika hadda ka socoto oo walaalahan daarood isku haysano daaroodkan siyaasadda hadda isku haysano waa aragtay nasr intay ku mashquulsanayeen ma gabadhii Saleebaan hoos uga dhiibnay tartan ku jirna waa caadi waa la tartamaya waa aragteen maalin hore gabadhii Tunisia maxay ka joogtay Tanzania ma ahayd habartii funga ahayd hoosaan ka siinay waa xifaaltan hawiyada daarood isfahansiin laakiin meesha kaliya oo aanan daarood weligeed uga adkaanin oo mar waliba meydka aan soo jiidanayn oo Batuulakay u fiirsada Batuulakay la jiidayo oo laba daarood ay saa u jiidanayaan ba ka soo horbaxayo adoo qoslin oo labin sheegar oo dhahay waa guuleysan Soomaaliya ha noolaato FIFA hawiye qoor weyne ba waxa ku soo agmaray laba daarood oo saa u jiidanaya Batuulakay saasi u sitaan hadaba hadaladaasi horta waa hadalada deelqaaf ah waxyaabaha Idris Bebe aad uga xanaaqay dadku ay ku sheegi jireen waxa kamid ah inay caayaan inay radaan gabadh bad u eg tahay waxayba sidaas weligay ama weligeen meynaan arag xifaalta ka dhaxeeya Idris iyo CK laakiin waxaan sooran karaa dumarka waxa ugu badan colaada dumarku ma hadho Idris Bebe iyo Mrs Wall oo isku wanaagsanayeen maadaama isku wanaagsanayeen hadana CK bay isku wanaagsanayeen dumarku waa hadba ninkii dhaqda ayuu la heebiye macnaha markaan waxaan filayaa anu saas uma filayaa CK shakhsiyadiisa markuu ugu jiray baraha bulshada dad limit cayiman buu lahaa oo is hayaan laakiin maanta inta Mrs Wall ay wax la soo duubtay shakhsiyada Mrs Wall dad amaani jiro caayay baan arkay isagoo lagu caayay baan arkay dad nacib CK oo nacbaasho qof ay nacib yihiin aawadeed hadii lagu caayo wato ugu liidata haddaan maanta adiga ku caayo adoo qof wanaagsan agteeda ka wanaagsanaa hebel baan nacab oo la socotaan kugu caayo waa maagaabnimada iyo aqli xumada ugu liidata waana tan lagu sameeyay ta caarka ah oo rag badan oo caayayeen CK oo nacabnahay baa lacala la socota hadaba macnaha ma aha in anigu aan cid u xaglinayo laakiin hadba qofkan saado aqli ahaan wiila saxan yahay way jiraan dad kuwa kale la saxan yihiin oo taaniga la saxanay qarad la tahay dad badan oo la fikirina way jiraan fikirka lagu kala duwanaan karaa balse anu boqolkiiba boqol waxaan u filayaa inuu isna kamid yahay cidda macnaha danaynaysa Mrs Wall danayntaaduna mid ku hirgeli karta waayo weligeed iyo allaheed maynaan arag meel ay aad isku jijidanayaan waqti hore long time maxaa sababay markay dib soo kacdoomo bal fikirka aragtida aad xor baad u tahay oo nala wadaagi doontaa ku soco wallahi waa nacs asaarada uu jilcsan Batuulakay waxaad samaysaa xifaalta ka hawiye daarood ee Minnesota ka socdo walaalkeeyo adaa inta tahriibay waxaad ka booday darbigi iska soo laabo meeshaadan ku soo dhaqo faraha ka qaadar Ameerika halka mid ba ka wuxuu ku yiri waa nacs macnaha waa nacs in horta macnaha waa filaya dagaal inuu barta ka ilaaminayo macnaha waa dagaal raadis ba filaya macnaha qofku marna isaga dagaal raadis ama balaayo raadisa mid labaad ma laga yaabaa in uu wado mujahabaabin macnaha dagaalka xagga laga wado ma furin kale inuu ku furo mid labaad dhalinyaradii baraha bulshada kii qabyaalada cadaysanayay ee qabyaalada meel loo soo fadhiistana dadka waa ka takooran kii aan qabyaalad jeclayn ee umada Ilaahay si kala caan uga dhax noqdana burush xaara la marnay ama qabyaalad baa la marnay formal life
ma arag sidii kuntu meel soo fadhiistay hawiye isaaq samaroon ciise dhulbahante majeerteen ogaadeen gabooye dadka caayaya for my life ma arag xaqiiqatan marka waa maxay sababta loo dhaweysanayo ee loo amaanayo dadka kala caayaya ee qabiil intuu caayo qabiil loo hiilinayo ee qabyaalada meel soo fadhilay reer hebel waa in la laayaa reer hebel waa waxa lagu sameeyaa dadka kale nadiifta ayaan waxa lagu aqoona waa maxay sababta burushka xaarka loo marnay macnaha ninkan wuxuu marinayaa waa nin hawiye ah daarad baa maanul beerinaya waa macnaha daarad baa ka adkaaday waa sikoo soo fadhiiso waa dagaalan waa daarad baa keenay daarad ay samee taana ma filayno samayn doono qabiilada ummadda Soomaaliyeed waa dad sharaf iyo karaamo leh meel kastana waslada xaarana ku jira qabiil kasta ku jira suldaan waalan suldaan caadiya shakhsi caadiya ganacsada magaranaysa waalan oo budgetkiisa ku bixinaya ganacsigiisa ku bixinaya dhiig iyo qabyaalad iyo kala fogeyn dadka ah ninna wuxuu ku bixiyaa ganacsigiisa inuu reerihiisa iyo dadkiisa iyo dadka kale la jaarkaa wax ku bixiyo marka waxaan la shakhsiyaad aad u dir xun inuu yahay baa iga muuqata Idris Bebe ku rafan maayo hagaasa kaga wareegaya haddaba ninkii loo diiday inuu yimaado laas caanood ay waliba u diiday gabadho waliba gabadhaas oo fiimo quuja walibana ay markii dambana uu amarkeeda ku soo galay iyo ogolaanshaheeda uu ku yimi hadaladii iyo amaamirtii ay waxa ka mid ahayd in aanu kaga hadlin siyaasad Soomaaliya ah oo aanu ku falaqayn karin midii iyo hawlihii Puntland ka dhacay aanu ku falaqayn karin arrimaha miyuu fuliyay mise muu fulin bal daawada shacabka si gaar ah ugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa maamulka dhamaantiis waxaan u mahadcelinayaa madaxda ilaa heer madaxweyne ilaa iyo heer xukuumadda oo mahadcelinayaa si ay soo dhaweeyeen oo qaabileen mahadcelin buu wadaa mahadcelinta weynay Djibouti uu qayb ka ahaada fiimina weynay qayb ka ahaataa maadaama ay yihiin dadka sababay inuu yimaado ayagaana diiday inaanu imanin oo muu imanin ayagaana ogolaaday oo rubitaankoodu ku yimi mahadcelintu inuu ku daraaday soo saamaha balan ku socon waxaan u mahadcelinayaa jamaahiirta dhamaantood waxaan u mahadcelinayaa garaadkayga oo halkaan hadda aan ugu dambayn gurigiisa aan ku suganahay halka igu soo dhaweeyay oo kaligii ama ahayn garaadadii oo dhan oo meesha wada jooga iyo ugaasiba waxaan leeyahay maasantiin garaad thank you waan leeyahay aad iyo marlaad iyo saddexaad waxaan leeyahay thank you shacabka reer Soomaaliya maasantiin halka waxay nooga muuqataa inaan loo mahadcelinin macnaha libaaxada way mudnayn loo mahadceliyo bila dhageysta ayuu shantana anaa ku fasaxay inaad magaalada waa ku fasaxay talaaq iyo asluub adigoo leh shalayna anaa ka joojiyay maanta anaa ku fasaxay adoo akhlaaq iyo edeb iyo asluub aan cidna aflagaadeeynayn fadaraal aflagaadeeynayn wixii garow ka dhacay aan kaga hadlayn laascanood anaa ku fasaxay tag hadaba hadalka uu ku yimi iyo ficilka uu ku yimi waa ogolaanshaheeda muxuu ugu mahadcelin waayay والله بلا مدح وكمير ميري لكن مين أنا مدح لقى ميري كريم بها هيدا إنه إذا عباد هنا تيجي ما هنا تيجي ما أنت تكسر كلا يلا ما عاد تجيبوه وما تسي ما ده ويشتغلون أيوة كلا هذا رسول كلا بقى إنه صاير على عباد حتى بقى عاد بقى ما ستين مقالك سيل جرايا إن هو واحد ليه يستاهل أمانة الله وزير رسولنا إنه مقالك هم دمر فوكسي جارسيا سيل جرايا بيش كتوي دقة صار بحسي فوقية باي باي